السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maxamuud cashkan waxaan ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad strap waxa la yiraahdaa suun okay suun kii dharka loo xiranayo ma ahan kan sarwaalka loo xiranayo ama shaatiga waxa dhigi kartaa belt laakiin suunkan waa saale boorsooyin suun ku dhex yaalo ee dharka lagu talagalay inay yani ay sandadaadan ama saacada suunkeeda ama boorsooyinka suunkooda jakatinka suunkeeda baagaga suunkooda dhamaantoodba yes strap ereyga saddexaad strenuous waxa waa adag yes climbing the mountain was a strenuous task inaan buurta koro waxay ahayd shaqo adag strenuous workout ama strenuous exercise aydan waad arki doontaa in badan waxaa laga wadaa jimicsi adag ereyga saddexaad strict waxaa la yiraahdaa qofka markuu yani tusaale macalinka kugu adag aanan ku ogolaynin inaad ciyaartid aanan ku ogolanaynin inaad homework soo sameyn weysid waxa waa strict teacher waalidkana waa la mid strict parent qof haduu ku dhaay have a strict parent waxaan leeyahay waalid aanan ii ogolanaynin inaan soo bashaalo habeenkana soo daaho yani inaan iska ciyaaraan ii ogoleen strict qaabkaas loo isticmaalaa strive waa dadaalid waliba dadaal iska caadi ma ahane waa dadaal qofku a lot of effort great effort u bixinaa yes she always strives for excellence marba si guul u gaarto ama horumar way u dadaashaa marka strive waa dadaalkaas ereyga shanaad stubborn waa qof madax adag yes stubborn for example he is too stubborn to apologize yani uu aad buu madax adag yahay umana fududo qof inuu raali geliyo ereyga lixaad staff waa shayaal things bay isku macno yihiin for example put your stuff in the bag waa sida anigoo kule put your thing in the bag marka thing ay isku macno yihiin waa iska shayaal ereyga toddobaad stumble waa dhicid qofkii inuu yani simbir raxdo deedna uu dhaco yes he stumbled on the stairs jaranjaradii buu ku dhaca stumble waxaa kaloo la yiraahdaa inuu qofka qalad ka dhaco yes she stumbled during her speech qalad yar baa ka dhacay markii khudbadda bixinaysa yes stand waxaa la yiraahdaa markay ku cajab geliyaan shock camal waxa dhahdid iyo waxa qabatid markaa garan weydid yani warka lagu sheegay baa la yaabta adiga dhamaanay yani afkii baa jooqda gab camal stand shocked camal for example she was stunned by the news warka markay maqashay yani way iska aamusto way wax ay dhahday garan weys stand qaabkaas loo isticmaalaa ereyga sagaalaad vanity waa kibir yes waxay isku macno yihiin pride ama arrogance kibir yes her vanity made her check the mirror often or vanity can lead to foolish decisions yes vanity marka waa kibir isla weynin pride ay isku macno yihiin ama arrogance waxaa ka soo horjeedo humility ama humble qof mutawaadic ah isdhuldhigad badan yes ereyga tobanaad u dambeeyo velvet waxaa la yiraahdaa yani dhar jilicsan basically mara jilicsan ama dharka jilicsan sida dirac ama kuwaas la yiraahdaa velvet for example the dress was made of velvet diracan wuxuu ka samaysan yahay mara jilicsan ashkan intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day bye bye